inaad caawa ka soo qayb gasheen sanad guuradii saddexaad ee Khaatumo State of Somalia oo ay noqotay 3 sanadood 5 markaan u gaadhnana waa la yaabi doonaa waa guul weeye aad iyo aad guul u weyn weeye 3 jir waxaan maleynayaa deelma 3 jir waad garanaysaan caruurna soo marnay waalidna waa u badanahay marka 3 jirku wali wuxuu u baahan yahay protection fara badan in la xafido in la ilaaliyo in cudurrada laga ilaaliyo in xanaanta laga ilaaliyo in qalbigiisa wax wanaagsan lagu beero ay 3 jirku u baahan yahay waayo wuxuu ku jira xilligii uu curdanka ahaa moogta marka Khaatumo waa 3 jir mabda fiican ku shaqeynaya Khaatumo maxay Khaatumo waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliyeed Khaatumo waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliyeed Khaatumo waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliyeed Khaatumo waxa loo abuuray in ay dadkeeda iyo dalkeeda Soomaaliyeed ay u madax banaanaato taladiisa horumarkiisa wanaagiisa siyaasaddiisa iyo ilaalinta xuduudaha Soomaaliyeed mid walba sanad guura waxa Khaatumo waxaanu leenahay qofka maamul kasta oo ka jira wadankii Soomaaliya oo wanaagga Soomaalinimada iyo haybadeena ilaalinaya inaynu u hambalyeeyno inaynu taageero inaynu la shaqeyno waayo aniga Soomaalinimada qof ahaan markaynu qorunnahay de waa wax koowaad ee waajibka ku saaran inaad ilaalisid weeye waayo sharafta dadkaaga oo dhan haddaad ilaalin weydo de taadii baad dayacaysaa because dadkaagii baad ka mid tahay dalkeena inaynu u daacad u ahaano difaacno dadka talentiga talada u dhiibano ilaahay wuxuu qadaray in maanta madaxweynaha uu yahay ragga ugu tacliinta badan Soomaaliya ragga ugu waaya aragsan xagga siyaasadda nin maanta la oran karo waxa weeye wuxuu u baahan yahay training ama waaya aragnimo kale ama cilmi ha noqoto ama nidaam dawladeed ha noqoto ama dhaqan ahaan meeshu ka soo jeedo ha noqotee waxa weeyaan nasiib baan u helay in Cali Khaliif Galayd uu noo noqdo waxa iyaduna inala fadhida marwadii madaxweynaha our first lady Maryam aad baan kaaga mahad celinayaa inaan noo soo dhigto waxaan kaloo u mahad celinayaa Cabdi Warsame awa gudoomiyahayaga degmada oo city councilka aadiya barnaamijka guulaha Cabdi Warsame durbaba soo hooyay waxa kamid ah oo inaga inoo gaara in wadooyinkii magaalada Somali Avenue Somali Street Oromo Street Taleex Avenue waxa weeyaan waa guulo lagu daydo oo maapka Google-ka markaad eegtid Minneapolis Somali Street baa ka soo baxaya moogta magac shiro weeye Cabdi Warsame magacaha jiro next time kana waa ku fooli doonaa insha Allah Soomaalinimadu waa inta kartidu waa inta waxqabadku waa inta marka dadkeena inoo shaqeeya ee aynu dooranay madaxda xisadooda weynaynu siinaa taladooda qaadanaa talageliyada ku dheeda aynu u gudbino leeyahay halkaas hawsheedu ka dayacan tahay Cabdi Warsame la riix waa aad bay muhiim u tahay waan uga mahad celinaa dadka Soomaaliyeed ee isu taagay doorashada markuu taagnaa midhaheedina waa inaga maanta maalina maanta hadal badan ma jiro waxa weeyaan xafladda aynu isugu nimi waa sanad guuradii saddexaad ee Khaatumo State of Somalia Khaatumo State of Somalia State marxaladii maanta ku jirtaa waa marxalad aad u fiican waa wadan curdina maamul curdina weeye dagaal badanna ku jira oo ah maamulo kale oo hana qaaday hadda ka hor oo dhulka yeelan gudihiisa kula jira ayaa jira
خاتمه وفي عنتهاي عيدا كي ودسمي مامل كي وحلقوا باهي ديجانا ذا ريح خاتمه اسمه نو صعدا إلا تولو إلا دقموين وضد علم كودو مانت كتاعين هاي almost 85% دولك ريح خاتمه أو ضد كتشوجا ما عنده وتشتى واحد كاركستين مدحوينه سومالي لان أو لاس عنو تشوجا let me tell you this publicity هو ماله بكاميرا دوال وقبت قفك لكن ماشى والشركة كقبتي هدي الحمد لله هذا family جاي عليه و 1/3 of this building ماشى أنا عاود شغله أفر ميلاد مركز لوقا ميل كم إذا أيه space كلية هذا قال له سو حري واللي لاس عارض يقبل كيسول بعد بوقت بانو مدحوينه فقاروا ليه هاي وكقد بدأيه لاس عارض وحكوا يلا استاديوم مدحوينياش كقد بدأيه ندتك مدحضر نين كنتن تكنيكا الله سوق علي يشاي صدم لان كروزر أو سوسو سعودي هوتيل حمدي هول كيسيرا الوحري مدحوينه لاس عارض كمان دور أضيو أف مشارة ماشى وتجي حتى كي سجوا وزيرك عافمات كوا هذا يورث كود دعويين بلدتك أصلا اللي سقط دري فيري وزيرك عافماتك وانين غير خاتمة وإلهي حاجة ورث قصة قرين أضياش ماشى تشوجي بل إتكس كود فيري وحكليه كدعويين سيلاية كدعويين وحياه عافماتك وحياه وضد الله مرة ضدك لوجها كوكها فيري بالي waxay dacweynayaan waa ninkii iyaga ugu jiray kaalinka waa nasiib daro waxaasoo kale Soomaalida maanta xagga siyaasadda weeye ayaa waxa isku sameeyay moogta waad aragteen dawladda xamar ka jirta carqaladaha ka hor imaanaya marka waxaan leeyahay annagu haddaan reer khaatimo waxa weeyaan sababtay u jiraan waxa weeyaan maamul xumada inay ka baxaan weeye inay iyagu ismaamulaan dalkooda hore u mariyaan dhaqaalaha ilaaliyaan deegaanka ilaaliyaan dadkiina niyad u soo celiyaan Soomaalinimadu aanay weligood ka labdhin weey marka aad baan uga mahad celinayaa dhammaan dadka oo dhan inaad nagala soo qayb galaan munaasabadatan dawladda federaalka ee Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa dhulku waa dhulkiinii gobolada xataa marka gobolada la tilmaamayo annagu waxaanu nahay Sool Sanaag iyo Cayn dhulkii calanka Soomaaliyeed hoos yaalay weeye dalka Soomaaliyana saad ogtihiin wuxuu leeyahay madaxweyne baarlamaan golaha wasiirada wasaaradda waliba wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda difaaca wasaaradda daaqa hawada waxaanu faraynaa dawladda federaalka inay khaatimo dadka reer khaatimo iyaga dhulka difaacayeen ay calankii iyo ay ku sabooraan inay hay'adaha wasaaradda difaaca ay ka furato xafiisyo waanu rabnaa in wasaaradda arrimaha dibadda ay xafiisyo ka furataan rabnaa in hay'ad kasta ay magaalada ka shaqeystaan rabnaa marka dawladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inay dalka xamar xafiisyada qaar ka soo rarto oo dhulka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay ku abuurto